بسم الله السلام عليكم وإذن سلام أصحابتي ميل والبا joogtiin kusoo dhawaada channelkeena Bushra Cooking and Healthy walaalay maanta waxaan rabaa inaan idin share gareeyo bariis yar oo aad u macaan oo easy ah oo pilau rice oo recipe-giisana aad u fudud yahay insha Allah inta asaga guda galin waxaan rabaa inaan uga mahad celiyo walaashay adna abaay aad ay u mahadsan tahay shout out ay ii sameysay aad ay ugu mahadsan tahay jazakallahu khair teeda kale waxaan u mahad celinaa asxaabta adna aad ay u mahadsantiin idinkana walaalo jir ayaa tihiin walaahi dad ay ka camal weligay ma arkin dad fiican waaye maasha Allah say iigu imaadeen ilaahay bisa og maasha Allah dad aad u tiro badan iiga imaada agtaada aad ay u mahadsantaa abaayo yani dad waxa qalbigooda fiican yahay maasha Allah ilaahay idin dhaafa ayaa leeyahay intaas hadaa mahad celinta uga baxo waxaan rabaa inaan guda galo recipe-geena insha Allah soo maanta aan maxaa sameynayaa brown rice oo maxaa ka sameynayaa bariis caadi oo cad waaye but wuxuu noqonayaa brown rice bariis oo aad u brown dark ah like inuu madow yahay loo maleynaa oo macaan badan pilau waaye pilau qofka yaqaan oo kasa yani bariis isku karis as a simple bariis Soomaali camal just wax yar kalarka ka bedelan marka recipe-giisana wax yar oo aad easy waa insha Allah waxa u baahanahay xawaaji duduub waaye 2 qaada haysta xawaajiga loo badina bariiskan waxa u baahanahay 3 xabo basal badan oo u baahan yahay inkastoo aan basasheeda markasta aad u badan tahay cunto ku karinayo iyo waxa u baahanahay 5 xabo toon iyo gabal sanjabiil iyo wax yar kabsar intan waxa ku haysta hilib ku haysta oo maxaa la gacan maal garab iyo feere iyo I don't know iyo waxaas isku jijiro waaye hilib ari le waaye intan waxa ku haysta saliid oo extra virgin oil saliid saytuun waaye soo marka maxaa rabaa basashan ina soo jijiro and then kana ina dabka dhinaciisa aadno oo soo dubto insha Allah marka waa kana maxaa dubaa xawaajigana dubaa marka waxaa rabaa inuu dark brown ii noqdo marka soo dubo oo dark brown ii noqdo isku soo noqonayna basashan waa soo yareysana insha Allah ila socdo walaalahayga waa kana marka xawaajigi muxuu noqday dark brown ma gubanin dab yar ku sameynay waa ilaalinay but it's like saido brown u noqday marka diyaar waaye marka meesha ku shubanayna oo ku tumeeno then basashina sana u soo jajartay then waxa u baahanahay stagana u baahanahay iyo qorfe hadarti filfil heel everything waa ku darsan kartaa soo ani just simple intaana igu filan no spicy ma u baahni marka intaas rabaa inaan ku sameeyo then saliida dabka saaranayna waa kana marka digsigeena dabka soo saaranay saliid waxa u baahanahay like 3 qaada camal cause laba bakeeri iyo bar wax yar oo bariis ayaa sameynaa soo intaas igu filan marka waxa sugeynaa inay noo kululaato insha Allah kana marka basashiyan ku shubay saliid way ii kululaatay marka waxaan ku darsanaa harkiskaas ku darsanaa marka waxaan sugaa basasha inay ayadana dark brown ay iga noqoto ilaa ay brown ku soo noqonayso marka waa arkeena say ku soo baxdo intaas brown ku soo dhiga insha Allah waa kana marka basasheeni saanay waxa u soo noqotay dark brown ma gubanayso ina ilaalisid waaye soo brown ay noqonay before ay madow noqonin marka waxa ku darsanayna hilibkeena ku darsanayna hilibka biyo kuleel iyo cusbo ku soo dhaqay cause fridge-ka ka soo bixiyay inuu kala foofo waaye soo si fiican biyo kuleel 2 jeer ku soo dhaqay marka saas uu ekaado hadana maxaa ku dareynaa kabsarka ku dareynaa iyo xawaajigana saasoo dark brown u yahay kadibna maxaa ku dareynaa cusbo ku darsanayna hada qiyaastaada ku darso markaas marka intaan isku walaaqayna waana dabooleyna
waakaasa marka maxaa sameynaynaa biyo ku darayaa kadibna waxaan sugaa intuu hilibka ii bislaanayo maasha allah caraftiisa ma laga sheekeyn karo istaagii qorfihii iyo maxaa la dhahaye carfiskii kale maasha allah si isku dhex galeen marka waa daboolayaa 15 minute 20 minute kadibna bariiska ku shubanayna insha allah waa kana marka suugadeena diyaar waaye saasay u agtaa waa ujeedin it's like a dark black camal waaye maasha allah هذا ومعان تهي بريس كان مركز سودي سان لو سمي بلاوغان محل لها بلاك رايس أما براون رايس واحد عشاء وغلوعي كرتا هذا نوع حكوشو بينا بريس كوكوشو بينا بريس كان وصور دقي مركا عنتو الشقادة البلاوة سوغدا ودقي هذه 40 minutes سوكو أها مركا بي بدن مقادن دونو إن شاء الله asaa haddana soo qaleynaa marka waa arkeynaa markuu soo koro bariiska diyaar soo noqdo isku soo noqonayna insha allah waa kanaa bariiskii waa soo qaleeyey si fiican iskugu soo shiilay like si fiican isku soo dhex galay haddana maxaa ku shubaynaa biyo ii karkarsan وكاسا مركب بيها مكو بدنين إن شاء الله مركو صوب بسلادة إسلا أركينا كوس بريس كوح بدن ورتسنا 40 minute دن بيها داكو بس وكاجل مركب بيها مكو بدنين انتا ناكو شوي هدو بيو وباهدو قدالة وقداري كرتا لكن هالمر بيه بدن إسكاق شوين مركو سكسو نقونينا مركو صوب بسلادة أركينا سوق صوبحو وكاسا مركب لاليه سادس قروح بدن وكسو بحي هادنا محا وباهنا هناي 10 minute إنا هورينو dabka waa ka gaabiyey number 2 ayaa u geeyey haddana maxaa u baahanahay bahalkan u baahanahay kitchen foil kan u baahanahay asaga soo saaraya kadibna si fiican bariiska wuxuu ku soo baxaa kala arag oo isku dhegdheganeen marka kana ku soo daboolaya 10 minute ku soo hayna kadibna diyaar waa insha allah waa kaasa marka sidaas ku dhaafaysa 10 to 15 minute then diyaar waaye waa kana marka walaalay sidaan quruxda badan oo bariiska noogu soo baxay meeshaan waxaan ku soo diyaarsaday kachumbari waxa waaye khudaar la isku soo jarjaray yaanyo basal kii kale qajaar cucumber iyo yogurt iyo liin dhanaan iyo maxalla cusbo filfil yar meel dheer ah iyo liin dhanaan intaas waaye marka wuu ku soo baxaa macaan uu ku yahay kachumbar marka ku cuntid bariiska maasha allah bariiskina waa kaas sidaas quruxda badan oo noogu soo baxay sorry qoraxa soo baxday maanta okay haddana way baxday bye bye marka waa kaas kalarkiisa quruxda badan soo baxay cos qoraxda qabanayso den muxuu noqonaa nooc kale marka waa kaas hilibkina saas brown u noqday maasha allah ma laga sheekeyn karo macaanka iyo carafta marka bariiska maxaa la dhahaa black rice ama brown rice waxaa rabtid waa ugu wici kartaa any name so it's tasty maasha allah aada u macaan yahay kachumbarkana aada u macaan yahay marka intaas idinla sheer garaynaya walaalaheyga please haddaa channel ku cusub tahay subscribe dheh like saar iyo share iyo samee beelkana ha ilaawin si aa u heshid notificationka waxa soo dhig wax kasta kuugu soo dhacaan insha allah marka commentiga iyo dhiirigelintina waa dhinaciina aad ayaa ugu mahadsan tihiin always waa idinka mahad celina intaas waaye marka insha allah waa kaasa maanta recipegeena marka insha allah the next recipe muxuu noqon doonaa green rice haddaa bariis yaasha jeceshihiin isoo sheega insha allah different bariis yaal waa keena so inshallah stay tuned next recipe is gonna be green rice delicious macaan badan masha allah so marka walaalaheyga sidaas iyo see you the next video wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu